السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن عافيماد قبا ندين رجينيا نينكن دين عبيش كايو قرال كان إنو سو قرين سؤاشنا ونغا سو ويديي wuxuu yiri waxaan hayaa roos cusub waxaan doonayaa inaan dhawaan aqal galo waxaan maqlay ama markaa qoraalaan arkiyaa ku arkay galmada foorarku inay tahay galmada ugu macaan ee lamaanaha dhexmarta arintaas ma sida aan qoraalada ku arkay ayaa saxa mise waxa ka bedelan oo arintu sida ma aad u mahadsan yahay galmada foorarka ama lamaanuhu ay isfoorariyaan ee qaabka isku galmoodaan meel dhakhaatiirta iyo culimada caafimaadku ay ku ogaadeen galmada gariirkeedu inuu ka badan yahay kalmada kale ma jirto laakiin waxa aad u muhiim ah lamaanuhu qaabka isku qarcinayaan ama qaabka ay markaas ay doonaan inay iyagu kala gudaan hawshooda waliba qaabka isla jeclaadaan ama ay calmadaan ama ay gogol xaadaan ee aan ka hor imanaynin caafimaadka ama qofka haweeneyda aan waxba yeelaynin marxalad kasta ay ku jirto haddii ay markaas marxalad kasta iyo maraaxil kasta ay marayso ay ku jirto aan waxba yeelayn waa caadi oo waa mid u bannaan inay sameeyaan laakiin haweeneyda oo la foorariyaa xilliyada qaar dhibaatooyin caafimaad baa ka dhalan kara xilliyada dhakhaatiirtu ay ka digaan waxa kamida xilliga uurku bilowga yahay xilliga uurka bilaha ugu dambeeya iyo xilliga uurka la raadinayo ama xilliga uurka la doonayo saddexda xilliba dhakhaatiirtu aad bay uga digaan haweeneyda ama galmada foorarka in lagu sameeyo sababaha ay u soo qaataana waxa kamida xilliga uurka la raadinayo in haweeneyda biyuhu ay dub uga soo laabtaan ama ay dub uga soo noqdaan maadaama oo qaabkaasi uu yahay qaab foorara waliba inkasta oo arintaasi aanay ahayn arin ay dhakhaatiirtu isku waafaqsan yihiin haweeneyda oo galmo foorara lagu sameeyo biyo ka soo wada laabanayaan laakiin waa arin inta badan riski noqon karta ama waa arin khatar abuuri karta xilliga uurku uu bilowga yahay ama marka haweeneydu uurka ay qaatana ee marka minkii uu markaas uu isxirayana in xilligaana ay khatar dhicisiman karto ayay ka digaan bilaha ugu dambeeya uurkana waa laga digaa oo sababta looga digaa waxa weeyaan in haweeneyda ama xaaska ay jugi soo gaadho ama marka haweeney waxa jira xuub tahaaran oo ku xidhan ilmaha oo gudaha ku jira inuu ka dhaawac gaadho ama uu kaasu qarxo ayaa laga digaa haddaba inta badan digniinahaasu waa digniino maynara laakiin lamaanuhu qaabka marka ay doonayaan bay u samaysan karaan ama ay ku raaxaysanayaan intaas inuu soo ururayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.